Cable TV. agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Somaliland Axmed Muuse ayaa ka xog waramay qaabka ay ardayda reer Somaliland uga qayb qaadan karaan deeq waxbarasho oo dalka Taiwan ugu deeqaya Somaliland isagoo sheegay in laga xareysanayo safaaradda Taiwan ay Hargeysa haatan ka furatay isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi waxaan rabaa horta inaan idin sheego waxa dhawaan Taiwan iyo Somaliland waxay yeesheen xiriir diblomaasiyadeed xiriirkaas oo soo socday muddo laakiin alxamdulillah rabbil caalamiin maanta Somaliland iyo Taiwan waa laba dal oo is aqoonsan waxaan la kulanay safiirka Somaliland ee u fadhiya Hargeysa anigu waxaan markaa kamid ahaa wafdigii January tagay wafdigii Somaliland ee tagay dalka Taiwan halkaana kala soo hadlay xiriirkan maanta alxamdulillah dhinaca waxbarashada halkan waxaan kula kulanay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska daraata waxaan kula kulanay oo nagu soo booqday safiirka iyo safiir ku-xigeenka dalka Taiwan u fadhiya magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland waxay noo sheegeen in ay diyaar u yihiin in ay scholarship iyo siiyaan dhalinyarada jaamacadaha ka baxday ee Somaliland waliba gaar ahaan kuwa doonaya master's degree iyo PhD waxa hadaba aan doonayaa inaan halkan uga sheego ardayda doonaysa hadii Ilaahay yiraahdo waxa weeyaan process dheer baa la galaa waxa weeyaan waxa ay tagi doonaan hadii Ilaahay yiraahdo ay ninkii fursad u helaa scholarship kani sanadkan maaha laakiin waxa weeyaan April next year ayaa la tagayaa hadii Ilaahay yiraahdo intii Ilaahay ugu tala galay ee application iska laga aqbalo laakiin waxa jira process la sii maro oo instruction kaas uu nasiiyay safiirka marka waxaan doonayaa inaan inta la wadaago ama la share gareeyo dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxday ee doonaysa master's degree ama PhD inay ku tagaan dalka Taiwan waxa muhiim ah hadaba process kaasi waxa uu bilaabi doonaa bisha 9aad waxaana laga xareysan doonaa safaaradda Taiwan ay ku leedahay magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland marka waa process dheer waxa ay prefer gareynayaan ardayda waliba pride ka ah ee waxbarashada aad iyo aad ugu fiican maaha arday walba inuu tago arday ishuba oo waxbarashada aad iyo aad ugu fiican oo waliba waxa ay prefer gareynayaan kuwa caafimaadka kala mesela health medicine oo dhan way apply gareyn karaan waxa kale oo danaynayaan oo dalkeenana anfici doonta engineernimada kuwa ama engineering ka soo baranaya waxa kale oo muhiim ah agriculture kuwa ah waxa kale oo muhiim ah fishery ama culumta badda oo kale marka safiirku waxa uu noo sheegay inta doonaysa iyo kuwa kaleba way badan yihiin laakiin kuwaas ay prefer gareynayaan shuruudaha ugu waaweyn waxa weeyaan ardaydu inay yihiin arday pride ah waxa weeyaan dhulka marka tagtaan afka lagu baranaya horta waa af Ingiriis laakiin waxa jira one year markaad ka eegtaan one year waxa jira afka dalkaas la barta oo qof walba u fiican oo dal ajnabi ku bartay afka Chinese ka ama afka Taiwanese waa isku af Chinese ka iyo Taiwanese waa isku af Mandarin baa la yiraahdaa marka one year compulsory waxaad ka arki doontaan hadii la yiraahdo website kooda waxaan doonayaa halkan inaan uga soo gudbiyo dhalinyarada inay galaan website la yiraahdo Study in Taiwan website ka la isay galayaan waxa ku qoran ama ku jira 160 jaamacadood oo uu dalkaas leeyahay oo ay markaan xagga tagnay noo soo sheegeen Cabdikariim Saciid Saalax telefishinka Cable Hargeysa shirkadda Dahab Shiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaarinaysaa in iyaga oo jooga guryahooda ama goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeegga e-Dahab